deeq lacaga ayaanu markii ugu horeysay gaarsiinay hooyo lagu magacaabo isla mar ahaantaasina ka shaqaysa xirfadda kuuliga Faadumo Oromo waa sida ay noo sheegtay hooyadaasi ayaa ah hooyo danyar ah waxaanu deeqdaasi lacagta ee ka timid gabadh muxsinada oo ku nool dalkaasi Australia aan ku gaarsiinay hoyga ay ka degan tahay magaalada Boorama hooyadaasi danyarta ayaa iyadoo ka hadlaysa deeqdaasi lacagteen guddoonsiinay waxay tiri أنا نسبة كلها بورما بعد ما أرمى ليرة لكن سفاد ما هذا المسألة ما كاي صح بالناس كويس كاي جور كويس كاي والله ده كاي جوا ده تسكا وتقوى يقطع تبعان ويقبضها ما تقولي قام مرة كبيلية ملك الحبيب بالسوق لا أروتنا ده والله إن سكول دكتور إن سكول دكانين بويلي أود لا أم بند سكول كوجس عريبة إنك جلاس كتبنا دكاني waxaan ka bixin kar waay lacagtii guriga way dhax fadhiya marka ilaa imsa carruur leed anu carruurta waxaan dhalay 12 qof aan dhalay mid bay ka shafacay haye marka in way waaweyn yihiin inna saddex bay yar yar ha sax saddexda imsa wax ku dhigata saddexda waxay dhigtaa inanka quraan buu dhigtaa iskuul waan ku awood kar waay haye marka wallahi wadanku day iska dhibaataysiyo shaqadan lama helo إلهي درتي وان كنا الله وصبر مالين وكيلاون مالين تطبات نوفر ديان تطبات نوفر شقينا. halka hoygana aad degantihiin ma idinka ayaa iskale ee dhulka jagada dad baa iskale laakiin waan ku dhisanay maalin ka soo xilin guura ka guurade meel aan ku guurana ma haysano oo degan ay deeq baan ku soo dirtay gabadh degan dalkaas Australia oo aan ku soo gaarsiinay deeqdan uga mahad celi gabadhaas aad iyo aad baan u salaamayaa ooyo saad ii tabtay oo ii soo dirtay lacagta xoogaaga aad ku shaqaysay khayr Allah ku siiyo abka lagama duceeyo iyo aloosha laga duceeya waan farxay marka lacagta inta arkay oo ii soo dirtay ma sha Allah Allah ku barkeeyo adiguna aan baa ku diray ummadda Ilaahay dal iyo dibadda joogo waxaan leeyahay oo ama dalka baa jooga ama dibadda baa jooga waxaan leeyahay qof dadkaas ka masaakiinana oo waxba haysan ya Ilaahay dartii oo meel kasta aad joogtiin ba Ilaahay dartii nagu saaciyo yaan leeyahay ya kolka waan tamar gable lugaha san ka kici kari lahay oo ma kici karayo ma shaqaysan karayo sidaan ku socdo kiniin baan ku socdaa kiniin baan ku soo hoydaa ma garad wax kala sheegaysaa hadii laba hal maqsin la ii taago wadaga xanuunsanay meel aday tiisi ku timaado aan ku meedo wallahi hab albaan ku qabilaa dadka dibadda jooga cadawgan Allah niga jabiyo wixii aad muraadleediin baa ka hore ka hela ya ummadda islaamka ee dibadda jooga waxaan leeyahay aad iyo aad baan idin salaamayaa islaamka nigu salaamaya Allahna nabad yeelo meel kasta joogtiinba ooyana soo xasuusto kolba dadkiinii baan nahay dadkiina iska baahan baan aqalla waxa nagu jira bangalooy baan ugu xiga biyo kama darsano baabka garaaci ma ban ka xishoonayna haddaan biyo u baahno ma garad biyana siyaadaasan ka xishoonayna marka dadku waa dadka eegayada samarroona weeyaan wayna dheer buuxaan haddaba hooyo Faadumo waxay noo sheegtay isla mar ahaantaasina dadka muxsiniinta ay ka codsatay in laga soo caawiyo isla mar ahaantaasina loo dhiso suuli ay sheegtay in uu qabyo ka yahay oo ku yaala gurigeeda magaalada Boorama walaalka muxsinka ahow in la caawiyay ayay diinteena suuban ina faraysaa hooyadaasi kaalmada u baahan qof kasta oo muxsina uu ka qayb qaadan karaa waa nuux kadiye magaalada Boorama.